صاحب ميانad ku faraxsanayn inaad ka baxso nolosha mugdiga ah saaxib waxaan ku faraxsanahay inaan 5 sano kadib xorriyadeydii aan dib u helayo laakiin waxaan ka murugaysanahay in saaxiibkaygii nolosha iyo qolka cidlada ee mugdiga igu helinay inaan cidlaynayo farxad iyo murugo labada dareen ee isku lidka ayaa gudahayga ku dhex hirdamaya saaxib awrwari waad ogtahay sidoo waqtigu dheereeyay waxa laga yaabaa maalin maalmaha kamid ah inaan gabigoodaba ka soo baxsado dabadeedna aan albaabka gurigaaga soo garaaco adiga iyo Amiira oo qoys noqday ama waxa laga yaabaa dhowr sano ka bacdi adiga oo madaxweyne noqday inaad xabsiga igu soo booqatin dabadeedna adiga oo haybad iyo madaxtinimo ka muuqato aad amar ku siiso saraakiishan iyo askartan yaryar inay xabsiga iga sii daayaan hal la ii sii daayo saaxiibkay Cumar saacada laga bilaabo waxaan u fidiyay cafis madaxweyne oo walibana wasiirku magacaabo saaxiib waxaan rajaynayaa waqtiga inagoo maxaabiis halkan qolka yar madow inagu walaaleeyay inaga oo xora inuu meel ka wanaagsan inagu kulmiyo Safiyay su'aal waqtigu bini'aadanka ma u cadowba mise waa u saaxiib miyaa la gaaray xilligan su'aalaha jawaabaa loo haynigu waali jirta waxaan weligeyba lahaa laba riyo riyadan aad ugu riyaaqay waxay noqotay mid aan waayideyda niyadda meel weyn iga taabatay laakiin tii labaad oon Axmed kaga fogaanayay ayaa noqotay suura gashay oo ah inaan Ameerika aado waqtiyowma waxaad ahayd dilaha jacaylka magacaagu sow Axmed ma aha waa Axmed hadda waxay soo gaadhay waraaqahaaga siideynta waxaan rajaynayaa 5 sano oo noloshaada ama waqtigaaga ka go'an inaad noloshaada dib u dhisatid oo na dareemin waqtiga 5 sano
halo halow amiira waa kuma walaala miyaad garan weyday codkayga axmed haa waa axmed maanta waa 25 Oktoobar xabsigiina waa layga soo daayay iimaad soo hambaryaynin laakiin maxaa ku helay amiira 5 sano ee aan xidhnaa iimaad soo booqan munaasabadii xalay toole ehelkii asxaabtii sameeyeen ma aad joogin waan ku hiloobay xad aan la qiyaasi karin iiga waran waayahaaga gacaliye xageed iminka ku sugan tahay waxba iima taraayo hadalkan telefoonka iska odhanaynaa ii sheeg xilliga ugu dhow ee aynu kulmi karayno caawa 8 fiidnimo ayaynu is arkaynaa qaali insha allah amiira iska waran waan fiicanay axmede adigu iska waranayso see tahay waan fiicanahay amiira ee qaaliya fadhiiso amiira amiira soodigan weynaaday maaha oo miyaan gaboobay sidaa kama wado soodigan sii qurux batay maaha adigu axmed waad naaxday oo miyaa naaxay may naaxitaankii baruurta ahaa maaha waad dhisantay waan ka xumahay axmed inaad 5 sano xabsi adigoo ku jira aan ku soo booqan kari waayay daqiiqad iyo minid kasta noloshayda ka mida niyadeyda waad ku jirtay laakiin qaali maalintii lagugu eedeeyey dembiga dilka ee xukunka kugu dhacay ayuu aabba igu qasbay inaan noloshaada ka dheeraado maalintii lagu xidhay 7 cisho ka bacdi ayaa dubay lay diray halkaas baa anigana 4 sano iyo badh xabsi ahaan aanu joogay dhowr bilood ka hor ayaan ka soo noqday 100 jeer ayaan ku soo booqan lahaa qaaliya waa layga kaa fogeeyey waan ku qasbanaa axmed aabe amarkiisa inaan qaato laakiin marmarsiiyo aan kaga baxsadana waan waayay waan ka xumahay gacaliso wax waloo dhacay ma malaynayo jacaylkeenu inuu yahay mid waqtigiiyo waayu ay waxyeeli karayaan maanta maadaama aan xabsigii ka soo baxay nolosheena waynu soo dhisan karayna waa haddii aad ii ballan qaado inaad garab istaagayso soore axmed ma jiraan wax waqtiga iyo waayuhu aanay waxyeeli karin mana u malayn karo hadda inaan garabkaaga istaago wax walibana 5 sano aad xidhnayd ayay dhammaadeen miyaa lagu guursaday maya layma guursan laakiin hee waan dhoofayaa axmed halkaad u dhoofaysaa ameerikan u dhoofayaa maanta isniintana baxaya laakiin waxaan kuu rajaynayaa inaad ameerika nolol qurux badan ka hesho
sidoo kale waxaan rajaynayaa in maalin maalmaha ka mid ah waqtigu mar kale uu dunida inagu kulmiyo. waxaan kuu rajaynayaa inaad Ameerika nolol qurux badan aad ka hesho. sidoo kale waxaan rajaynayaa in maalin maalmaha ka mid ah waqtigu uu dunida inagu kulmiyo. nabad ahow Amiila. axmed fadhiiso please, inaan kula hadla ayaan rabaaye. axmed, ballanta garab istaaga adiga codsatay waan ka aqbali lahaa. maanta inaan ku garab istaago iyo inaan kugula noolaado, laakiin waxaa jirta ballan taa ka horreysay oon aabbahay ka qaaday. ma inaad iga dheeraato ayuu kugula ballamay? waxba aniga noloshayda ha uga warwarin. anigu nin ayaan ah, wax kasta oo igu dhacana waan ka soo qaban karaa. waxaan kugula dardaarmayaa in aad naftaada ogaato. meel wal oo dunida aad ka tagto aniga waxaad ii tahay amiirada qalbigayga iyo noloshaydaba ku weyn. dunida inta aan ku noolahay xasuustaadu qalbigayga kama baxayso. bas axmed, anigana ha iga wahin. رفجعي ودرنا الله يودرنا رفجعي